waxaa saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada la wareejinayo warqad la sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dalbanayso dhexdhexaadinta Itoobiya sabab la xiriira ciidankeeda ku sugan gudaha Soomaaliya. Warqadan ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliya aysan diidaneyn ka qaybgalka ciidamada Itoobiya ay howlgallada ADMIS xilli dowladda federaalka Soomaaliya dhawaan warbaahinta ka shaacisay go'aanka bixitaanka ciidamada Itoobiya taas oo ka hor yimid maamulka Koonfur Galbeed. Mas'uuliyiin kala duwan oo xiriir aan la sameeyay kuwaas oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay noo xaqiijiyeen in warqadan ay tahay been abuur isla markaana lagu dacaayadeeyo dowladda federaalka Soomaaliya. Warqadan ay been abuurka ku tilmaamtay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa Tanzania looga dalbanayay in wadahadalo ay u furto Soomaaliya iyo Itoobiya si looga hadlo dib u eegis lagu sameeyo ciidamada Itoobiya ee gudaha dalka oo muhiim u ah amniga Soomaaliya ayaa lagu yiri warqadan ay iska fogeysay dowladda Soomaaliya. waxaana xasud mudan in dowladda federaalka Soomaaliya ay sidoo kale oo xumaaday xiriirka Itoobiya dhanka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya kadib markii Itoobiya iyo maamulka Somaliland kala saxiixdeen heshiis sharci daraaha. Si kastaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaana garwaaqsan doorka muhiimka ah ee ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin la dagaalanka al-shabaab ayaa lagu yiri warqadan wareegaysa baraha bulshada ee dowladda federaalka ku tilmaantay been abuur. Tanzania ayaa hadda guddoon u ah golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horay meel adag kaga istaagtay xadgudubka Itoobiya iyadoona dhawaan sheegtay in dalka ay ka baxayaan ciidanka Itoobiya xilli uu socdo qorshe kale oo lagu doonayo in lagu sii dheereeyo howlgalka midowga Afrika ee ADMIS. Si kastaba warqadan baraha bulshada la wareejinaya ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku sheegtay inay tahay been abuur isla markaana lagu dacaayadeeyo dowladda federaalka Soomaaliya laguna magac dilayo magaca dowladnimada Soomaaliya. waad ku mahadsantahay daawaday haddii aad halkan la soo gaartay waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka la agsaarto siina share gareyso bogaraad follow tiraado haddii aad YouTube-ka naga daawanaysana subscribe aad saarto si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay. mahadsanid.